Haddii 1000 qof ay arkaan muuqaalkaaga laakiin 30 qof kaliya ay riixaan, YouTube ma sii faafin doono. Xitaa haddii muuqaalkaagu yahay kan ugu fiican. Maanta waxa aan si faahfaahsan uga hadlayaa sababta muuqaalkaaga aan loo riixin. Fahamka CTR. CTR waa click-through rate. Waa boqolkiiba dadka riixa muuqaalkaaga marka ay soo arkaan wejiga hore ee muuqaalkaaga. Tusaale, 1000 qof ayaa arkaysa muuqaalkaaga, 50 qof ayaa riixaysa. CTR-kaagu waa 5 boqolkiiba. Haddii uu ka hooseeyo 4 boqolkiiba, way adag tahay inuu koro muuqaalkaaga. Balse haddii uu ka sareeyo 8 ilaa 10 boqolkiiba, YouTube wuu riixi karaa. Laakiin su'aashu waa, maxaa dadka ka hor istaagaya inay riixaan muuqaalkaaga? Sababta koowaad, thumbnail aan qofna la hadlin. Dad badan waxay sameeyaan thumbnail qoraal badan, midab isku dhex yaacsan, sawir aan dareen lahayn. Samee thumbnail kooban, 2 ilaa 4 eray keliya, hal fariin cad, hal dareen. Isweydii, qofka arkay hal ilbiriqsi gudahood ma ku fahmi karaa muuqaalkaaga waxa uu ka hadlayo? Sababta labaad, title aan xiiso lahayn. Dadku ma riixaan wax ay horey u yaqiineen. Tusaale, haddii aad title-ka ku soo qorto sida loo sameeyo YouTube channel. Laakiin haddii aad ku soo qorto sababta 90 boqolkiiba journalist-ka ay u fashilmaan 30 maalin gudahood, taasi waxay dhalinaysaa su'aal. Haddii title-kaagu uusan keenin xiiso, CTR-kaagu hoos ayuu u dhacayaa. Aan ku siiyo talo sir ah. Dadku ma riixaan muuqaal fiican, waxay riixaan muuqaal ay rabaan. Farqiga u dhexeeya content creator caadi ah iyo mid kora waa midka koro wuxuu fahmaa maskaxda daawadaha. Haddii aad rabto YouTube si dhab ah u koraya, ha hagaajin muuqaalka marka hore. Hagaaji sababta qofku u riixayo. Macnaheega thumbnail-kaaga hagaaji. Haddii aad rabto talooyin la xiriira YouTube growth ama YouTube kora, subscribe dheh channel-kan, like-na ha ka ilaawin. Aragtidaadana commentiga hoose inoogu reeb. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.